la dagaalanka musuqmaasuqa waa astaamaha dawlad wanaagga waana olaahyada ay xukuumadda mudane muuse biixi ka dhigatay halkudhigyada iyadoo u horeeya inaan soo saaro 100 kan labaadna 100 قاعدين فرا بدنا يبرنامج عسكري بلقات مدحوينه markuu dibisoo jeedinayba dalkan wuxuu baahan loo soo saaro sharciiso loo soo saaro sameeyo waxay leeyahay jiilaya anigoo kaashanaya agaasimaasha waxaa kan duwan shaqaalihii soo horeeyay wasaaradda traka khidmada oo leh wasaaradda inta dadka soo shaqeynaya oo kaashanaya waxaan isku dayi doonaa bal inaan waqtiga aan ku jiro inaan wax ka bedeli doono hadii la yiraahdo oo xasuus muddadii ay tirtay xukuumadda ka soo adkeynta amniga gudaha iyo horumarinta hay'adaha nabadgelyada ku shaqada leh waxay gobolada iyo degmooyinka dalka dhigtay nidaamka diiwaangelinta muwaadinka kaasoo haatan laga heli karo 14 degmo doorasho. xukuumadda Soomaaliland waxa ay sanad ka fulisay dayactir ay ku samaysay xarumaha ay hay'adaha dawladdu ku shaqeeyaan waxa la socday dabagal lagu sameeyay hirgelinta dhismayaasha dawladda inaan laga bedelin sidii loogu talagalay. sida sharcigu dhigaya waxa ay qiimaynta iyo naqshadeynta dhismayaasha dawladda xukuumaddu mar walba u gudbisaa guddiga qandaraasyada qaranka kuwaasi oo madax bannaan ugu bandhiga qandaraaslayaasha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku tartama 20 sano qandaraas ku soo jirnayo kulli waa markii koowaad aanu aad u aragno inay cadaalad lagu kala saarayo shirkadaha soo codsada intii Soomaaliland jirtay marnaba suurtagal ma noqon in tiro sax laga helo xaqiiqada shaqaalaha dawladda muddadii xukuumaddan tirada gacanta ku haysay waxay suurtagelisay tirakoobkii madax taabasho ee shaqaalaha dawladda lagu tirakoobayay tirakoobkaasi waxa ka soo baxay tiro sax ah oo imika si rasmi ah ugu saldhigtay diiwaanka mushahar bixinta qaranka mashruucan waxaa daafuray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan madaxda hay'adaha shaqada iyo shaqaalaha waxaa tirada markii hore ku xaadiri jirtay diiwaanka mushaharka ee dawladdu ay ahayd 16530 qof waxaa hawlgalkani meesha ka saaray tiro dhan 2467 ruux oo aan ka soo xaadirin goobtii diiwaangelinta waxaana tirada dhabta ah ee shaqaalaha dawladda ee imika diiwaanka sharci ay noqotay 14750 qof. muddada xukuumaddan tirada haysay waxaa si rasmi ah loo shaqaalaysiiyay 954 macallin taasoo wax weyn ka tari doonta horumarinta tacliinta geesta kale 300 oo fursadood oo shaqaalanimo waxay dawladdu si siman ugu qaybisay dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhan gobol kastaana imtixaanka xubnahaasi si gaara ayuu galayaa madaxweynuhu waxa uu go'aamiyay in 30% hablaha gaar looga dhigo fursadahan hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaa cirka ku horay ilaa shaqada helay leeyahay aqoontii oo ku mushaar qaadanay deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo shirka cimilada adduunka kaga qayb galaysay dalka Mareykanka ayaa dalka dib ugu soo laabatay waxaana gagida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay shaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo ugu horeeyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare iyadoo faahfaahin ka bixisay shirkaasi iyo wadamo badan oo ay socdaan ku tagtay أنا أيمن كمدوب أيام مقنع لا وحن صومري دور ميلود صومري لا سان فرانسيسكو مريكا كدور جر دور ميلود بان صومري واشنطن لا سان فرانسيسكو باك هذا واشنطن هذا كندا هذا وحن وسو وريجي marka in hawl aad wanaagsan oo qiimo badan ayaan soo qabanay adduunyadu maanta waxay ogaatay cimiladii isbedeshay
oo si weyn isu bedeshay marka cimilada ay isbedeshay cid kasta way saameysay cid kasta xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa ka go'an kobcinta iyo sare u qaadidda dhaqaalaha dalka wasaaradda maaliyadda ayaa awoodda saartay dardargelinta dakhliga dalka iyadoo kordhisay saacadihii shaqada oo laga dhigay labada gelinba si kor loogu qaado dakhliga waxaa kaloo kor u qaadis lagu sameeyey cashuurta badeecadaha faakaahaysiga loo isticmaalo ee aan daruuriga ahayn sida qaadka iyo gaadiidka iyo wixii la mid ah waxaa kale oo xukuumaddu ku guulaysatay samaynta xeerarka iyo siyaasadda maaliyadda iyadoo xukuumaddani ahmiyadda siisay tashiilka kharashaadka qaranka miisaaniyadda sannadka 2018 ee ay xukuumaddu diyaarisay waxaa ku jiray 35 mashruuc oo ay ku baxday hanti u dhiganta boqolkiiba 18 miisaaniyadda qaranka mashaariicdaasi oo ku wajahnaa waxbarashada caafimaadka wax soo saarka kaabayaasha dhaqaalaha biyaha xoojinta maamulka dawladnimo iyo shaqo abuurka TV-ga ka baxaysay maaragtay amaha lagu soo bandhigo ama riwaayadaha lagu soo bandhigo ama gabayha lagu soo bandhigo ama hadal ah lagu soo bandhigay maaragtay isdaba jooga ah maaragtay sidaynu maaragtay uga qayb galay oo aynu midho maaragtay dhalay aynu u keenay halkaasaynu soo gaadhnay waxaa daba ku xigtay inay ka qayb galaan dhammaan agaasimayaasha maamulka iyo maaliyadda agaasimayaasha guud iyo shaqaalaha kale ee aan fursadda u helin tababarka jaamacadda Hargeysa ka socda ee la macaamila ama gacanta ku haya maamulka iyo maaliyadda iyo xisaabaadka iyo hanti dhowrka intaba iyadoo barnaamijku uu noo socon doono muddo 5 cisho ah 5 cisho sidoo noogu socon doonana schedule-keena ay ku faahfaahsan tahay waxaan idigu soo dhaweynayaa barnaamijkii waxaan faranaa oo aan ugu adkaynaynaa muddada kooban ee 5 cisho ah si aad uga faa'iideysataan muddada dambe inaad waqtiga ilaalisaan waan ognahay madaxda hay'adaha ay halkan fadhidaan inay waqtigoodu muhiim yahay inay mashquul yihiin inay shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa culeyskeedu uu saaran yahay balse muhiimadda inagoo saarayna inaynu ka kasbanno aqoon iyo khibrad dheeraad ah mashruucan ama barnaamijkan waxaan ugu adkaynaynaa inaad muddada kooban aad sabir noo yeelataan waqtiga ilaalisaan isdiiwaangelintana aad wada samaysaan insha allah aad iyo aad baan mar labaad mahadsan tihiin intaasaan kaga baxaya gudoomiyaha gobolka saaxil duqa magaalada Berbera iyo sidoo kale maamulka dekedda Berbera ayaa maanta si wada jira xariga uga jaray waddo 1 kiiloomitir oo mari doonta xaafadda Burcasheekh ee magaalada Berbera taasi oo ay hirgelisay dawladda hoose ee Berbera toddobaadadii u dambeeyay munaasabadii xariga lagaga jiray waddadaasi ayaa ugu horeyn waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay agaasimaha howlaha guud ee dawladda hoose ee Berbera Maxamed Cabdi Jaamac iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Siciid waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ilaahay noo suura geliyay inaanu muddo 16 cisho gudahooda aan ku dhamayno wadadaas 1 kiiloomitir balaceeduna 7 mitir yahay mitir square-keedu noqonayo 7000 oo mitir square inaan ku dhamayno 16 cisho gudahood alxamdulillah rabbil caalamiin ku taala oo aad iyo aad ugu baahnayd waxa laga yaabaa inta hortooda bariga hore wadooyinka la marin jiray iminka golaha deegaanku wuxuu go'aansaday xaafadihii magaalada gudaheedii ee santaqadihii iyo cariishadii iyo boolka in la dhex mariyo si toonbalan kuna u wanaagsanaado dhulkuna qiimo yeesho runtii maadaama daarihii iyo magaaladii hoose la soo dhameeyay diinka 2018 golaha deegaanka ee Berbera ay ansixiyeen way ku mahadsan yihiin aad iyo aad boqolkiiba baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha iyo xogayaha ciidan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dawlad hoose ahaan ay ku dadaalayaan sidii ay u dhameystiri lahaayeen wadooyin aad u tiro badan inta ka hadhay sanadkan 2018